Why are we in Somalia, if not for American security? maxay tahay sababta aynu Soomaaliya u joogno haddii aysan ahayn arrimo dhinaca ammaanka ah bal naftiina weydiiya waa maxay sababta uu Maraykanku waayadan dambe meel walba oo dunida ka mid ah uu u joogo hagaag arrinta oo dhan waxay ku saabsan tahay shidaal. Well, ask yourself, why is the United States anywhere in the world these days? Well, it's all about oil. waayo Soomaaliya waxay leedahay keed shidaal oo aad u fara badan. Somalia has vast oil reserves. waxaan idin sharaxayaa sir yar oo qurun ah oo ku saabsan baaritaanada shidaal ee halkaasi laga wado iyo sida wakaaladda sirdoonka CIA-da Maraykanku ay ugu lug leeyihiin arrimahan. I'm going to let you in on a dirty little secret on the oil exploits that are going on over there and how the CIA is involved. sanadkii 2013 waxa ay CIA-du xarun weyn oo sirdoon ah ka furteen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxa ay kharash fara badan ku bixiyeen dadaal ay ku dhisayaan laanta sirdoonka Soomaaliya si CIA-du wada shaqayn u la yeelato isla markaana ugu isticmaasho faa'iidadeeda gaarka ah. Back in 2013, the CIA set up a huge intelligence headquarters set up in Mogadishu, which is the Somali capital. And they've been pouring funds into an effort into building up Somalia's intelligence infrastructure so that the CIA can co-opt and use it to its own advantage. sidoo kale Maraykanku waxa uu si qarsoodi ah saldhig military uga dhistay magaalada Muqdisho kaas oo ku yaala meel 70 kiiloomitir kaga beegan koonfur bari ee magaalada Xamar. saldhiggaasi waa mid aad u weyn oo qaabili kara ilaa 100,000 oo ciidamada Maraykanka ah. dhabtii waa mid aad u weyn. America has also quietly built a new secretive military base which is 70 kilometers southwest of Mogadishu, and this base is huge. It is so big that it can accommodate up to 100,000 US troops. This is big. waxaan kaloo akhriyay warbixinno ay online-ka ku qoreen dad badan oo caasimadda Soomaaliya ku nool kuwaas oo soo tabiyay in kaliya aysan arkin ciidamo badan oo Maraykan ah oo xaruntaasi ku soo qulqulaya balse waxay kaloo xaqiijiyeen in ay jiraan tiro sii kordhaysa oo calooshood u shaqaystayaal gaar ah kuwaas oo lagula soo heshiiyey inay sugaan ammaanka qandaraaslayaasha batroolka ee imaanaya Soomaaliya. And I have read reports online from a number of local citizens who report that they have been seeing not only a big influx of US troops into the area, but also increasing numbers of private mercenaries who have been contracted to help provide security for big oil contractors that are coming in to Somalia. ilawareedyada aan helayo waxay kaloo ii sheegayaan in sirdoonka CIA-du ay 2 saldhig oo dhulka hoostiisa ah ay ka dhisteen magaalada Muqdisho kuwaas oo u shaqeeya sida Guantanamo Bay ee sida qarsoodiga ah dadka loogu xiro. My source also tells me that the CIA has constructed 2 other facilities, and these are underground facilities there in Somalia. They function like Guantanamo Bay rendition centers. mid ka mid ah labadaas saldhig waxa ay ku qasbanaadeen inay qarxiyaan dhagax weyn oo ka dambeeya garoonka diyaaradaha Muqdisho. sidaas ayayna ku dhiseen waxaana habeen walba garoonkaasi ku soo dega diyaaradaheena xamuulka ah ee CIA-da kuwaas oo sida xamuul gaar ah oo aanan awoodin inaan ogaado waxyaabaha ay halkaasi keenayaan iyo waxa habeen walba ay halkaasi ka soo dejinayaan. Blast through solid rock at the end of an airport to build this facility, and every night landing on this airstrip are CIA transport planes. They're bringing in some kind of classified loads. I haven't been able to get any intel on what the content of these deliveries is, what they're bringing in each night. laakiin waxaan u malaynayaa in sida caadiga ah ay halkaasi keenaan dagaalyahano ku eedeysan argagixisanimo si halkaasi loogu jirdilo si looga helo wax macluumaad ah. But I would suppose, given the nature of this facility, that they're probably bringing in alleged terrorist fighters, bringing them in to torture and try and get some intel on them. saldhigga labaad ee dhulka hoostiisa ah waxaa lagu magacaabaa The Hole ama Soomaali ahaan godka waxaana laga dhisay madaxtooyada Soomaaliya hoosteeda.
Well, the other of the two facilities has got its own name. It's called the Hole. In Somalia, it's called Godka. And this facility was built underneath the presidential palace. maraykanku asal ahaan waa uu la wareegay Soomaaliya maxaa yeelay Soomaaliya waxay meel istiraatiiji ah kaga taallaa gobolka waxayna ku taallaa barta hoose ee laga galo badda cas waxaa halkaasi ku yaala Yemen sidoo kale Sacuudiga waxaa sidoo kale halkaasi ka fogeen Iiraan sidaa darteed waxaa halkaasi ku yaala meelo badan oo halis ah sidaa darteed waa dhul aad muhiim u ah. The United States has basically taken over Somalia because Somalia is a great geostrategic location in this region. It's located down in the mouth of the Red Sea. There is Yemen. We've got Saudi Arabia. We've got Iran. So a lot of hot spots down in this area. So it's a great staging ground. sidaasina uma sii adka in gacanta lagu dhigo Soomaaliya waayo madaxweynihii Soomaaliya ilaa laga soo gaarayay bishii Febraayo ee la soo dhaafay ninkaas oo lagu magacaabi jiray Xasan Sheekh Maxamuud waxaana qiyaasayaa inuu yahay ninkii ugu musuqmaasuqa badnaa ee soo mara taariikhda Soomaaliya. And it hasn't been that hard to gain control over Somalia. The nation's president up until February of this year was a guy named Hassan Sheikh Mohammed. He's probably the most corrupt president in the history of Somalia. waxaad hore iiga maqasheen anigoo tilmaamaya kal hore in waddanka yar ee saliidda hodanka ku ah ee Qatar uu dhaqaale ku caawin jiray ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee Suuriya halka sidoo kale Qatar ay 20 milyan oo dollar ku bixisay sidii Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu guuleysan lahaa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. You guys have heard me mention in the past that the little oil and banking nation of Qatar has helped to fund ISIS and other terrorist groups in Syria. Well, Qatar has also put up $20 million to get Hassan Sheikh Mohammed into power as president. taa beddelkeedana uu Xasan Sheekh waddanka Qatar siiyo maamulidda khayraadka saliidda ee Soomaaliya. And in return, Hassan grants Qatar control of Somali oil resources. sidaa darteed intii aysan Qatar keenin madaxweyne Xasan Sheekh doorashadii madaxtinimo ee Soomaaliya waxaa ka sii horreeyay nin kale oo lagu magacaabo madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed waana ninkii diyaariyay heshiisyada batroolka Soomaaliya. So before Qatar bought this presidential election for Hassan, there was another guy in there, a president named Sharif Ahmed, and he had set up this oil team to oversee oil contracts for the nation. waxaana markii Xasan Sheekh uu xilka la wareegay uu isla kooxdaasi u dhaafay isla jagadoodii laakiin waxay kooxdaasi sameeyeen waxay ahayd inay shaaciyeen in dhammaan heshiisyadii shidaal ee horey loo galay laga soo bilaabo eber si hadda iyo kow loo soo bilaabo isla markaana looga laabto dhammaan heshiisyadii horey loo galay. When Hassan took over, he kept this same team in place, but what he had the team do was declare all existing oil contracts null and void. They were going to start over from scratch, reneged on everything. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed waxa uu magacaabay koox la taliyayaal ah koox ka socotay Ingiriiska tiimkaasi Ingiriiska ah ayuuna u dhiibay inay maamulaan shidaalka laga baarayo Soomaaliya waxaana kooxdaasi lagu magacaabaa Norton Rose waadna eegi kartaan haddii aad doontaan ama si ka fiirsi leh ha u sameeyo ama yuusan u samaynine shirkadda Norton Rose sidoo kale waa koox la taliyayaal u ah shirkadda saliidda ee ay leeyihiin qoyska reer boqor ee waddanka Qatar iyadoo sidoo kale ah hay'adda maalgashiga ee waddanka Qatar. And also that prior president Sharif Ahmed had appointed an advisory team, a team that was exclusively from Britain, put this British team in charge of handling oil acquisitions for Somalia. And this team has a name. It's called Norton Rose. You can look them up. Norton Rose. And coincidentally, or not, Norton Rose is also the advisory team
for the oil companies owned by the Qatari royal family, as well as the state-run Qatari Investment Authority. Remember that. Arrinta jirtaa marka waxay tahay in shirkadda Norton Rose kaliya aysan ka caawin in shuruucda shidaalka u qorto dawladda Soomaaliya, balse waxay fududeynayaan in shidaalka Soomaaliya ay maamulkiisa yeelato dawladda Qatar. So what's happening is that Norton Rose has not only helped to write the oil policy for the nation of Somalia for its government, but they are facilitating control of that Somali oil into the control of Qatar. Sidaa awgeed haddii aan arrintaasi si gaar ah u sii taabtana, shirkadda maalgashiga Qatar waxa ay gacanta ku haysaa maalgashiga dibadda ee qarankaasi. Qayb weyn oo maalgashigeeda ka mid ahna waxaa ku jirta inay wax badan ku yeeshaan saamiga shirkadda Shell ee boqortooyada Holland. So I'll be a little more specific on this. The Qatar Investment Authority handles foreign investments for the nation. A big part of their investment includes a lot of ownership and stock in the Royal Dutch Shell Company. Dawladda Qatar waxay lacag aad u fara badan ku bixiyeen ama bilaabeen inay dhaqaale fara badan bixiyaan laga soo bilaabo sanadkii 2012. Waxay malaayiin iyo malaayiin saami ah ku yeesheen shirkadda shidaalka ee Shell. Maanta Qatar waa dawladda qura ee ugu saamiga badan dhammaan saamileyda shirkadda boqortooyada Holland ee Shell. Waxayna aad u daneeyaan inay arkaan faa'iidada shirkadda Shell oo sare u kacaysa. Xeerka ay ku dhaqmaanna dabcan waa haddii ay u suurto gasho qiimo jaban ku iibso ee qiimo sare ku sii iibi. Sidaa darteed ayayna u iibsadeen saamigaasi iyagoo filaya in laga yaabo in wax uun dhacaan sare u qaadi kara in saamigaasi cirka isku sii shareero. The Qatari government they've just put in a massive amount of money, huge spending spree that started around 2012, and they have bought up millions and millions of shares in the Shell Oil Company, so that today Qatar is the single biggest shareholder of Royal Dutch Shell stock. So it is very much in their interest to see the profits of Shell go up. The rule, of course, is when possible, buy low, sell high. So they bought the stock anticipating that something was going to happen to cause that stock to go up. Marka waxa dhacaya waxay tahay in Norton Rose ay dhammaan arrimahani u fududeynayso si dawladda Qatar lacagtaasi faraha badan u samayso. The Royal Dutch Shell waa shirkad caalami ah oo xarunteedu ay ku taalo waddanka Holland, laakiin lagu aasaasay Ingiriiska. Isla markaana Qatar waxay sare u sii qaadaysaa maalgelinta ay ku samaynayso shirkadda saliidda ee Shell. Hadda waxaan ogaanay shirkadda fadhigeedu yahay Ingiriiska ee Norton Rose inay u hanqaltaagayso inay gacanta ku dhigto qandaraasyada shidaalka ee Soomaaliya. Waxayna arrintani samaynayaan iyagoo ka faa'iideysanaya madaxweynahan maqaarsaarka ah ee dawladda Qatar kursiga ku fariisisay. Waxay doorashadiisii ku iibsadeen $20 milyan asal ahaan. Okay, this is insider trading in a sense. So what's happening is that Norton Rose is helping to facilitate all of this, so that Qatar can make this money. It's a multinational, Royal Dutch Shell. It's headquartered in the Netherlands, but it's incorporated in Britain. All right. At the same time that Qatar was dramatically increasing its investment in Shell Oil, we've got the British-based Norton Rose team that was granting control over the Somali oil contracts. They were doing it through this puppet president that Qatar had put into power. They bought the election for him for $20 million, basically. Sidoo kale, madaxweyne Xasan waxa uu wiil uu adeer u yahay u magacaabay wasaaradda batroolka iyo khayraadka dabiiciga ah ee dawladda Soomaaliya. Waxaana iyadoo u soo maraysa wiilkan uu adeerka u yahay Xasan Sheekh ay shirkadda Shell awoodeeda dhaqaale ku maqoonisay khayraadka shidaalka ee Soomaaliya. President Hassan of Somalia had put his own nephew in as the Minister of Natural Resources for the Somali government, and it was through this nephew that Shell was able to establish a monopoly over the Somali oil resources. Waxay gabi ahaanba xireen dhammaan baaritaanadii kale ee shirkadaha shidaalku ku doonayeen inay ku yimaadaan Soomaaliya, kuwaas oo doonayay
inay hawshaasi soo galaan. They totally shut out all of the other exploration firms that were wanting to come into Somalia, that were trying to get in on the action. Sida awgeed, waad aragtaan sida hawshaasi u shaqaynayso. Tani waa ganacsi qarmuun oo aad u xun. Musuqmaasuquna wuu sii socdaa iyadoo madaxweyne cusub Soomaaliya ay yeelatay. So do you see how this works? This is some dirty business. And the corruption is continuing with the new Somali president. Waxaan ula jeedaa ninkan xilka loo magacaabay bishii Febraayo ee la soo dhaafay. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uu u magacaabay maamulihii hore ee shirkad shidaal oo Ingiriis laga leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. This guy that was just put in February. The new president of Somalia has appointed the director of a British oil firm as the new prime minister of Somalia. Waa wax lala yaabo sida arrintaasi u dhacayso. Musuqmaasuqa noocan ah oo aan arkayno waa mid la filayay. Funny how that happens. This kind of corruption that we're seeing is to be expected, though. Qaabkan lagu kontaroolayo oo lagu maamulayo qaran dhan oo dhisan waxay caddayn u tahay in ciidamadu ay xitaa ka awood badan yihiin dawlado caalami ah, kuwaas oo maamulaya qurumo dunida oo idil ah. Waxaana shirkadda boqortooyada Holland ee Shell ay si cad ula shaqaynaysaa shirkadda boqortooyada Qatar, waxaana ay qaateen khayraadkii shidaalka ee waddanka Soomaaliya iyagoo meesha dhiganaya siyaasiyiin ay siday doonaan u maamulayaan. This kind of control over entire nations is evidence that forces even more powerful than national governments is in charge of nations on a global scale. And Royal Dutch Shell is clearly working in collaboration with the royal family of Qatar. They have taken over the oil resources of Somalia by installing these political puppets. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in shirkadda Rothschild ay maamusho shirkadda shidaalka ee Holland ee Shell. Taasina ma ahan qayb ka mid ah aragtiyadooda guracan ee waxaad ka eegi kartaan website-ka rasmiga ah ee shirkadda Shell. Ka dooro meesha ay ku qoran tahay About Us, waxaadna halkaa ku arki doontaa sida ay uga hadlayaan qaabkii qoyska Rothschild ay si weyn u maalgashadeen shirkaddani sanadihii 1880-aadkii. iyo sidii Rothschild ay kaalin weyn uga ciyaareen sanadihii la soo dhaafay iyo qaabkii ay u horumariyeen shirkaddani caalamiga ah. It's important to know the Rothschilds control Royal Dutch Shell, and that's not some conspiracy theory. You can go to Shell's own website, official website, go to the About Us page, and you'll see how they talk about how the Rothschild family invested heavily in the 1880s and how the Rothschilds have played a major role over the years in the development of this multinational corporation. waana inaad ogaataa in dadka maamula shirkadahaasi caalamiga ah aysan jirin dalal gaar ah oo ay daacad u yihiin, ma ahan wadaniyiin. daacadnimadooda ugu horreyn waa naftooda ee ma ahan dawladaha ay ka tirsan yihiin. waana middaas sababta aadan ugu kalsoonaan karin dadkaasi. waa middaas sababta ay u yihiin kuwa door muhiim ah ku leh mashruucan ka socda dhammaan waddamada kala duwan, hadday ahaan lahayd Qatar, Turkiga, Ingiriiska iyo Maraykanka. And understand, the people who control multinational corporations, they're not loyal to any particular nation. They're not nationalists, they're globalists. Their loyalties are first and foremost to themselves, not to the nations in which they reside. That's why you can't trust these people. That's why there are key players in this scheme that are from all kinds of different countries. We can go from Qatar to Turkey to Britain to the United States. qorshahani ma siinayo oo keliya hodantinimo aad u ballaaran dadka maalgashiga samaynaya iyo kuwa ku lugta leh, laakiin waxa uu sidoo kale uu dawladda Maraykanka siinayaa jaanis ay ku maamusho Soomaaliya, taas oo noo saamaxaysa inaan ballaarino howlgalladeenna xagga dhulka ah, xitaa in ka sii dheer annagoo u gudbayna dalalka Yemen iyo Iiraan. waxaas oo dhan waxay salka ku hayaan shidaal. And this scheme provides not only vast amounts of riches, right, to the people investing, the people involved, but it also provides the United States with control over Somalia. It gives us a staging ground to expand operations even further against nations like Yemen and Iran. And it all goes back to oil. u fiirso,
hadda askarigii Maraykanka ahaa ee dhowaan lagu dilay Soomaaliya annagoo ku guda jirnay dhammaan cadeymahaasi waxay tilmaamaysaa in nidaamka cusub ee caalamiga ah uu u shaqaynayo sidii gacanta loogu dhigi lahaa shidaal fara badan oo dalkaasi leeyahay. Think of it, that this U.S. soldier that was just killed, in the midst of all this evidence that the New World Order is working to take control of more oil resources in this region. maxay tahay sababta dawladda Maraykanka iyo sirdoonka CIA-da iyo militarigooda ugu dirayaan inay la soo dagaalamaan xarakada Al-Shabaab? waxay ku saabsan tahay shidaal. Why is it that the U.S. government is sending the CIA and the military in to fight some ragtag group of terrorists like Al-Shabaab? It goes back to the oil. aan idiin akhriyo daraasad culus oo ay soo bandhigtay dawladda Kenya xilli aan fogeyn. waxaadna ogtihiin in Kenya ay dhinaca koonfureed xuduudka la leeyihiin Soomaaliya, waxaana daraasadani ay leedahay sida tan: khatarta weerarada Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ay ku hayaan kaabayaasha muhiimka ah ee tubooyinka saliidda qaada ee waddanka Kenya waxay dhalisay dareen ah arrinta istiraatiijiga ah ee ammaanka waaxda tamarta, waxaana ay muujinaysaa dabacsanaanta ka imaan karta qaybtaasi. ilaalinta kaabayaasha muhiimka ah waa inay noqotaa qayb muhiim ah oo ka tirsan ammaanka qaranka. ujeeddada kooxaha argagixisada ah ma ahan oo keliya inay ridaan dawladda dhexe iyo inay helaan xuquuqdooda madaniga ah, taas oo ay ku waayeen qowmiyad ahaan ama koox diimeed ahaan, laakiin waa sidii ay ku aas-aasi lahaayeen gacantana ugu sii hayn lahaayeen khayraadka. Let me read to you from a major study that was presented to the government of Kenya not long ago, and you may know Kenya is that southern neighbor. They border Somalia to the south. And this study that was given to the Kenyan government says this, quote, "The threat of Al-Shabaab and Al-Qaeda terrorist attacks on the critical infrastructure oil pipelines in Kenya has brought to the attention the strategic issue of the energy sector security, highlighting the potential vulnerabilities of this sector. Critical infrastructure protection should be a key component of the national security. The objective of terrorist and extremist groups is no longer to overthrow central government and gain civil rights which were denied to their social, ethnic, or religious group, but to establish and retain control over resources." sidaa darteed waan ka xumahay inaan idhaahdo, balse askarigaasi Maraykanka ah ee dhowaan lagu dilay Soomaaliya looma dilin isagoo u dagaalamaya inuu dadka Maraykanka ah ammaankooda sugo, taas oo ah sida ay sheegteen laanta militariga Maraykanka uga mas'uulka ah howlgallada ciidan ee 53 dal oo Afrikaan ah oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano AFRICOM. So I hate to have to say it, but that U.S. soldier who just died, he did not get killed fighting to make Americans safe, which was the claim of AFRICOM. askarigaasi waxa uu naftiisa ku bixiyey sababtoo ah CIA-da ayaa u baahatay in ciidamada Maraykanka ah inay dagaalkaasi galaan oo ay gacanta mariyaan xarakada Al-Shabaab, kuwaas oo halis ku ah dakhliga ka soo gala shidaalka. That soldier gave his life because the CIA needed the U.S. military troops to go in and wipe out Al-Shabaab extremists who pose a threat to the oil revenues. askarigaasi dhiiggiisa waxa uu ku bixiyey shidaal dartiis, waana xaqiiqda jirta. waxaas oo dhanna waa saliiddaas Soomaaliya ku jirta darteed. That soldier's blood was payment for oil. That's the truth. It's all about oil. baaritaankani waxaa sameeyey wariyaha Maraykanka ah ee baaritaanada ku xeel dheer Jack Morphonius, waxaana uu ku soo bandhigay bartiisa YouTube-ka ee The End Times News Report oo qofkii doona uu ka daalacan karo.